بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى الصومالية ملك السؤال جوكتو وحن لها دمانتين عيد وناكسن عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ملك السؤال جوكتان وحن إذن الله مركل عيد وناكسن ولا ليال قارهان انت حجك ما انت تاغن وحن لها أيقنا الله إذا كأقبل عماشه دعاء الصومالي أسود دعين يسان الله أقبل أيضا أنا يان لهي dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida caadada iyo dhaqanka noo ahayd boolaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isu naxariisashada dadka Soomaaliyeed ha eegaano dariskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka Soomaaliga ee walaalka ah inta aad haysata aan haysanin ha ogolaanin ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha dariskaaguna aanay faraxsanaanin waxa aan haysanaa si kasta ay u yar yihiin aan wadaagno aan isku dayno ilmaheena meel kasto ay joogaan inaan ka farxino aan isku dayno kuweena waxaysto waalidiinta qaarkeed kurbada iyo maxaan ku iraahdaa walwalka ay qabaan inaan ka bi'ino oo qalbigooda maanta maalintii farxadda dadka dhama inay farxaan ayaa haboon sidaas daraadeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaan walaalayaal hal isu naxariisto hoos la isu eego dariska waliba gaar ahaan xuquuqda uu leeyahay la ogyahay hal la eego inta danta yar xuquuqda ay leedahayna waa la ogyahay idan hal yeelo dhamaanteen dad muslimiin ayaan nahay dhaqan muslim aan yeelano oo wanaagsan inta kadib sidoo kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo meel kasto ay joogaan nabad inay qaataan walaalayaal in badanna waa inaan ku celceliyana kama caajisayo dhiig daadanayaa wax hal kama imaanayo walaalka Soomaali ah si kasta oo aad u kala ra'yi duwan tihiin in dhiigiisu daatahay wax maslaxad oo kugu jirta malaha guud ahaan mujtamacan u sheegaya Soomaali dhiig badan wax ka soo daatay in maanta dhiig oo sii daatay sax maaha meelaha dadka walaalaha ah ay qalbigooda wax isu gaareen maanta waa fursad ugu fiican oo Ilaahay aad u noqonayso aad Ilaahay cafis weydiisanayso aad Ilaahay naxariistiisa dalbayso hadii laga gardarna inaad cafinayso walaalkaaga hadii aad adigu isleedahay amaad gardanayna inaad asiga raali ah tira adigana aad joojiso gardaradii waaye wax xal ku jira walaalayaal waaye aragnimo nagu filan iyo khibrad nagu filan waa leenahay oo aan ku fahamno in aanan colka iyo dilka iyo kala irdhowga aanu waxba noo soo kordhinaynin waa aragnaa aan ka joogno walaalayaal dunidu wayna dhaaftay dadku wayna dhaafeen nagama karti badna nagama wanaagsana nagama waxaysna halka shay aan lagu dhaafay waxay tahay bas inaanan is aaminayn inaanan is dhowreyn inaanan kala dambaynayn dadka madaxda ah meel kasto ay joogaan walaalayaal waqti ay leeyihiin Soomaali waa dhamaaday waqtigan inta yimaado waa iska joogaya anigu u dheelaha nin walba waxa uu ku joogayaa raali ahaanshaha dadka nidaam ayuu ku joogayaa oo asagu aanu lahayn ee dadku ay leeyihiin nina shaatigiisa ma tolan karo walaalayaal horteen jira waay waan isku soo dayay waa la waay maanta inaan isku sidayna qaarkeen kuwa mas'uuliyiinta ah ee madaxtinimada maanta dalka meel kasto ay joogaan in mustawa kasto mas'uuliyadaas ay ka hayaan yaan hadalkaasi yaan ula dan leeyahay oo ula jeedaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta idinku shal aad doorateen fursad la siiyo dhiig xal maaha waa ku celinayaa mar kale dhiig xal maaha waa ku celinayaa mar kale mas'uuliyiinta dhaqanka culamaa u diinka bulshada rayidka dadkeeda firfircoon uqaasha cid walba siyaasiyiinta madaxda mas'uuliyiinta iyo kuwaan ahayn mar walba waa ku celinayaa inaan dhaho walaalayaal berri qabriyada korkooda isku salaami inta aan dili lahayn markay dhintaan kadib yaan xabkanta saarno aan dhahin waa heshiinay xala dhalay baan nahay xala dhalay ma noqon kartid dhiig hadaa daadis afka waa laga dhahayaa laakiin qalbigu ma degayo ha gaarsiinin dhaawac qalbiga walaalka oo aanu ka soo kaban karin mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasto aan joogno Soomaali way fiican tahay dalku rajo ayuu leeyahay maanta ayuu ugu rajo badan yahay waan soconnaa inaan dalka dawladnimo dalka dhan mas'uuliyadiisa qaada sida dawladaha adduunkuba ay ummadooda iyo dalalkooda mas'uul u yihiin inaan u noqono walaalayaal shabaab dalka aan ka xoreysan deymahana lagu leeyahay cafintooda aan iska dhamaysto aan bixinno maaha in laga cafiyaa diyaar loo yahay sida deyn la isaga cafiyo standardka iyo dhaqanka iyo waxa ay leedahay aan marro
xoolaheen iyo xooggeena aan iswaafajino aan yarayno gacan horsiga aan yarayno mushaaraadka aan qaadanaynahay in dad nagu kabo waxaan ku yaray karna waxay tahay dhammaanteen inaan ogolaano inaan bixino waxa dowladnimadu ay leedahay wax kasta oo wanaagsan oo la jecel yahay qiimo loo bixiyay leeyahay dowladnimadu waa qaali qiimo loo bixiyay leedahay dadka waxa haysta ee cashuurta dowladda la dhuumanayo ee ka leexleexanayahay waagahaasi waa dhamaadeen cashuurta la bixiyo si aanan waana dhibay inaan maqalno igadaa shirtayo saas ayay tiri Soomaaliya ka tiri waana dhibay Africa Unionki ayaa shirayo saas ayuu Soomaaliya ka yiri waana dhibay jaamacadda carabta ayaa shirtayo Soomaaliya raashinha loo aruuriyo badal cunto baahi u baxtinaysa wayna dhibay inayna dhibayso qalbiga ka nacabna bas uga biximayno ficlan uga bixina dalka shabaab aan ka xoreyno walaalayaal cashuur qiimaha dowladnimadu ay ku jirayso oo cashuurta aan bixino la xajaclada iska daa dadku in ay badar cunaan oo caloosha buuxsadaan bas uma noola shaati isarwaal qurxoon inaan qaadano uma noolin sharaf iyo karaamo iyo cizi inaan leenahay u noolnahay maanta waxa naga dhaawacana waa taasa dadka Soomaaliyeed walaalayaal waxaan idin rajaynayaa ciideeda duruufaha maanta dalku uu ku sugan yahay oo ah dawlad dhisida ciribtirka argagixisada cafinta deynta horumarinta dhaqaalaha iyo dakhliga dawladda dhammaan sanadkiisa meesha aan joogno meel ka fiican inaan joogno ayaan rajayn wadadeena waa ku taaganahay dawladda federaalka waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed in lagu taageero in ay dalka duruufta uu ku sugan yahay la bedelo inaan bedelno waa naga dhab war haddii mid cashuurta aanu bixinayn oo mid kale wixii yaraayo la bixinayo oo xadayo oo la cararayo goorma ayaan waxa aan rabna aan gaarina waxa aan rabna qiimaha ilaahay qiimahaas aan bixin dawladda Soomaaliya ma ogolaanayso in wax yarka ee gabadha jidka shaahiga ku gada sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in inta jeebka ku shubto oo la baxsado ballan ilaahay aan dadka Soomaaliya hortiisa ku galaya marna inaan la ogolaanin raalin aan naga noqonin war ka joog ha ku garabsiin nin tuuga la soo safanin waa tuuga qof xadaaroon tuuga umad xaday lama safan karo tuuga umada xaday umadu xaday islaantaas miskiinta ee koobka shaahiga gadayso ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo bajaajlaha mootada jidka muxuu ay ku wato oo maxaan ku raaday kirada muxuu ay bajaaj soo kirayso ilmihiisa ku irsaaqayo lacagta laga aruuriyo ninka raba inuu inta qaato daara ku dhisto Nairobi apartments oo gatay Istanbul oo gatay adduunyada oo ku waxeeyo maya walaal ma dhacayso ilaahay idinkiisa subaxyada kamida gurigaaga uga soo libisanin ninkaas tuuga inaad difaacdid maxaa loo xiraa maxaa loo haystaa maxaa loo ceebayna maxaa loo karaam waa la ceebayna waa la karaamo tira wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha ninka alla ka cabsan waa in sharaf ma leh xatooyada xoolaha dadweynta waa xaaraan 10 jeer meel walba lagu ay ku qorantay ku caday diinta islaamka ayada quraanka munazalka ahadiithta shariifka dhammaan xikmadaha muxuu ahay islaamiga ah dhan ay dhaqanka suuban ayaa tilmaamayo tuugu inaanu dadnimo lahayn weligeed waa la ceebi jiray waa tuug yaa la dhihi jiray wiilkii tuugu dhalay gabadhii tuugu dhashay xaaskii maxaan ku raad naagti tuuga waa la dhihi jiray maantana waa ku faanaa soo wax u qabsada ma aragtay muddadii yareed uu joogay meel dhaadhac la igey dekada igey immigration ka la igey cashuurta degmada la idiib inta la idiib meel lacag lagu qaadaa ninka raadina waa tuug nin umada u shaqeey raba ma aha umada hada u shaqeynaysa ka dhabta orod macallin noqo iskoolka tag ilmaha yaryarka baata bar umada hada u shaqeynaysa dhabta orod maxaan ku raada isbitaalka tag ka shaqee nabadda ka shaqee wacyigelinta ka shaqee barashada diinta islaamka ka shaqee wanaaga ka shaqee sidaas cizi adduunyo iyo maxaan ku raada karaamo iyo muxuu ahay naxariis aakhiro intaba aad ku helaysaa intaas maanta waa ciid walaalayaal waa maalin wanaagsan waxa wanaagsan inaan isfarno isku waanino isxasuusino baan uga danleeyaa laakiin nooma kala sokeeyaan dadka Soomaaliyeed oo ogaada
ninka shabaabka ee na qarxinaya ee kan tuugaya cashuurta xadaayo nooma kala sokeeyaan isku si aan ula macaamilayna isku qiimay agteena kaliyihiin kama sokeeyo cashuurta ninka xaday kan maxaan ku radaa 14 Oktoobar maxaan ku raday zooba dadka ku qarxiye kama sokeeyo waalidiintii iyo ardaydii safka ugu jirta shahaadada inay ka soo qaataan wasaaradda tacliinta kii qarxinaya kama sokeeyo kuwa hoteelada dadka fadhiyo shaay cabayo shaqada maanta isoo ka nasanay kuwa inta ku galo isku qarxiya kama sokeeyo ninka cashuurta xaday kan cashuurta la dhuuntay kan ku kaalmeeyay in cashuurta lala dhuunto dakhliga dawladeena waa inaan ku filnaanaa mishaarka 200 ee ugu yar ee gabadha dhulka xaaqda ama wiilka waardiya ama askariga u qaato in aan soo tuugsanahay macquul ma ahan sababna ma jirto dalkan waxa yaalo khayraadka yaal lacagta taal dhaqaalaha yaalo waxa suurtagalka ka ah sabab aan maalin walba caalamka saas intaan u wareegno aan meel walba istaagno aan dhaano hana la kabo budget support hana la sii war hana la yeer aan u dhahnay ma jirto waana soo weynay jeebkeena xoolaheena dowladnimadeena sharafteena karaamadeenna diinkeena cirdigeena waxaan ku ilaalinaynaa wax annaga aan leenahay waana ku filan yihiin annagana ka dowladda ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ballan qaadayaa waxaasi inaanan si xun loo isticmaalin karaan awood kasto aan leenahay iyo karaamadeenna waxaan dul dhigaynaa shilinka qofka Soomaaliga laga soo qaaday inaan si kale loo isticmaalin mar kale walaalayaal ciid wanaagsan dhammaan walaaluhu meel kasta joogaan maanta mar kale waa maalintii cafinta waa maalintii farxadda waa maalintii isu naxariisashada walaalka Soomaaliga ah deriskaaga eeg caruurtaada marka ay farxayaan biib ka seenayaan waxa lagu ciyaara ka dhikankooda u dhigma ee deriska eeg fiiri markay libisan yihiin ee salaada muxuu ahaay ciid aad gacanta ka soo qabatay masaajidka u soo wado kii kala fiiri waxaan awoodno aan qaybsano aan wadaagno